الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا موضوعي ugu dambeeyay oo aan kaga hadlaynay zakada. Waxaan soo qaadanaynaa mowduuca ugu dambeeya oo ah yaa la siinayaa zakada. Sideeda nooc ee zakada la siiyo. Ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay aayadan Qur'aanka ah إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الله جل جلاله آياdan wuxuu ku sheegayaa sideed nooc in la siinayo zakada. Nooca koowaad waa fuqarada, waa dadka ama qofka aan waxba haysan aslanba. Nooca labaad waa masaakiinta, waa dadka ama qofka haysta qaar ka mid ah waxa asaga ku filan. Nooca saddexaad waa dadka zakada soo ururinteeda ka shaqeeya, waana dadka uu hogaamiyaha muslimiinta ah amaba wakiilkiisa uu u diray in ay zakada soo ururiyaan, waxaana soo galaya xisaabiyaha iyo qaybiyaha. Nooca afaraad kuwa qulubtooda la soo dumayo, waana dadka islaamka soo galay oona u baahan in qulubtooda la soo dumo si iimaankooda loo xoojiyo. Nooca shanaad ee zakada la siinayo waa adoomada dadka ah in lagu xoreeyo, waa qofka muslimka ah in laga xoreeyo hantida zakada, adoon ha ahaado ama adoomad. Marka waxaa kaloo ka mid ah dadka cadowga u qafaalan in la soo furto iyo dadka adoomada ah oo dadka ay adoonka u ahaayeen ay heshiis kula galeen in hadday intaas oo lacag ah keenaan ay xor yihiin. Nooca lixaad waa dadka deymaysan, waa dadka ku deymaysan qaab aan macsiyo ahayn, mana haysto wax uu deyntaas isaga dabaro. Qof ku deymaysan oo kale dadka uu heshiisiinayay darteed. Nooca toddobaad waa dadka wadada alle ku taagan oo mujaahidiinta ah oona difaacaya diinta alle iyo dadkiisa iyo dhulkiisa si diinta ay kor u noqoto. Waxaa wax laga siinaa dadka duulaanka ku jira iyo dhufayska si ay isaga dabaraan duulaankooda iyo dhufayskooda. Nooca sideedaad waa qofka musaafirka ah, waa qofka musaafirka ah oo sahayda ka go'day. Zakada ayaa waxaa laga siinaa inta uu u baahan yahay si uu wadankiisa u gaaro. Qofkaas musaafirka ah haba noqdo hadduu rabo qof wadankiisa taajir ku ah. Waxaa waajib ah in zakada la bixiyo si dhaqsi leh marka waqtigeeda la gaaro, mana banaana in dib loo dhigo ilaa duruuf in ay jirto maahane. Tusaale, hantida in ay taalo wadan kale oo ka fog uusan helin qof uu u wakiisho. Alxamdulillaah, intaas ayaan ku soo koobaynaa mowduucyadii aan uga hadlaynay zakada. Qofkii raba in uu si talantaali ah u akhristo page-ka tarjumaad ee Facebook-ga ama tarjumaad channel ee YouTube-ka ayuu soo booqanayaa. Marka insha Allah waxaan soo gudbin doonaa mowduucyo kale oo annaga iyo adinkaba wax weyn nagu soo kordhiya.